haatana waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal hidaha iyo dhaqanka axmed faarax cali idaaja ayaanu noo soo jeedinay. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee VOA-da waana qaybtii 12aad waayihii iyo sheekooyinkii garaadwiilwaal. dhegaystayaal, sida laga garan karo sheekooyinka naga soo gaaray ee qaarkood aan barnaamijyadan idinku maqashiiyey, wuxuu wiilwaal ahaa geesi dagaalyahan ah, haddana keligii taliyuu ahaa. wuxuu ahaa daafaca iyo daryeelka danaha bulshadiisa nin hurdada iyo harsigaba u seega. haddana wuxuu ahaa isla bulshadaas nin gacan bira ku maamula, marar badanna cayaayir ku laaya. nin aad looga cabsado ayuu ahaa. sidaasoo ay ahaydna waxaa dadkii uu u talin jiray ka soo dhex baxay rag isku taagay, rag uu sina uga ilheli waayey, gadaalkiina iyagu hah iyo huhba kaga yeersiiyey. waxaa raggaas ka mid ahaa marahaygana ugu yaabadnaa nin la odhan jiray cigaal iley oo af iyo adinba garaadka in badan ugu babac dhigay. sidiisa ayuu gabyaa ahaa, oo sidiisa ayuu dagaalyahan ahaa, oo sidiisa ayuu dadka uga digtoonaa, goor walbana isaga ilaalin jiray. waxay labadu ahaayeen xigaalo dhow, ismase indha buuxin jirin. wuxuu cigaal weligiiba ka hawoon jiray sida dadka kale inuu garaadka uga baqo. nin la loolama waxbana aanu ogeyn ayuu ahaa. sidaas awgeedna in badan ayuu garaadku isku dayey inuu dabinna u maleego, marnabase waa ugu soo dhici waaye. ma yarayn inta jeer oo uu u soo diray dhallinyaro goor habeena gaadma ku soo disha. hase ahaatee waxay ku soo noqon jireen iyagii oo uu cigaal qaarna laayey, qaar kalena uu dhaawacayoo wax jaban iyo wax jiisa uu ka dhigay. waagii dambe wiilwaal oo garan la si alla si uu cigaal uga ilhelo ayaa goor ay habeenbarkii tahay waxay sheeka dhex martay dumarkii u dhaxay middood. jeer dambe oo ay kala seexan lahaayeen ayuu ugu faanay geyiga ballaarka badan ee ay ku dhaqan yihiin inuu isagu rag oo idil ugu xirri badan yahay, ugu xeel dheer yahay, ugu geesisan yahayoo nin u soo bareeri karaaba aanu ku noolayn. markaas bay waa dahabe waxay ku tiri, garaadow, arrintu ma aha siday adiga kula tahay, dunida rag kalaa kula jooga. waxay ahayd jawaab uu aad uga argagaxay, maxaa yeelay ma ahayn mid uu marnaba filaayey. yaab iyo cabsi isku dhafan ayaa alla u keenay. waa kushadayoo waa kululaaday. meel uu jirayba shaki baa si degdeg ah maankiisa ugu soo uruuray. markaas buu weynaalistii uu ku fadhiyey inta kor uga booday qoftii dumar ahayd haw ku soo yidhi, oo sidii libaax toog lala helay dusha kaga dhaca. isaga oo si laxaw leh kolba dhan ugu seeraarinaya ayuu ku yidhi, sheegnaa ninka aad og tahay ee cid kula ogi aanay geyiga joogin, anigana ii babac dhigi kara. ogowna halhaleel haddii aad iigu sheegi weydo, kurkaagu kuma ooli doono oogadaada inteeda kale. dabadeedna iyadii oo isku dayaysa farihiisa xoogga badan inay luqunteeda ka fujiso ayay tiri, garaadow, ninka aan sheegayaa waa midka igu soo dhiiraday, oo isaga oo og inaan adiga kuu dhaxo habeenada aad iga maqan tahay igu soo dheelmada. waa ninka waaga ii bariya, isaga oo iga raba inaan dharka isaga furo. markaas buu sidii hore si ka daran u carooday. umalkii ku soo kordhay ayuu qarsan kari waayey. sida baarqab gorongolay oo qooqii gugu uu la tegey ayuu qowrallada abuurka keenay. wixii ay dhegihiisu maqleen ayuu rumaysan kari waayey. kolkaas buu inta haweenaydii sii daayey, hadalkiina u qaboojiyey, wuxuu ku yidhi, sharac allee, ninka sidaa igula kacay magaciisa ii sheegoo degdeg igu sheeg. waxay tidhi, anigu haatan cidnaba magac dhabi maayo, ha yeeshee waan kuu tilmaami oo si aad ku garato ayaan kugu sheegi. wuxuu yidhi, waa tahay, bal ii tilmaan.
waxay tidhi waa ninka marka saa dambe geedka shirka la isugu yimaado ku lulmoon doona. tilmaanta dahabo wiilwaal ma ay solin mana garan dulucdii ay ka lahayd. markaas buu weydiistay inay arrinta u balballaariso, taasoo ay kaga jawaabtay habeen dambe marka aad reerkaaga kala jirto ayuu ninkaasu ii iman doonaa, aniguna intaan sheeko ku asqaysiiyo ayaan dhab u daahin doonaa. gelin hore iyo gelin dambeba intaan haasaawiyo ayaan soo jeed ku gaarsiinayaa barqadii iyo xilliga uu raggu geedka shirka ku soo ururi doono. ileen xalay oo dhan buu soo jeedee ninkaasi geedka la fadhiyo ayuu ku lulmoon doonaa, kolba madaxa ayaa laabta uga dhici doona, adiguna sidaas baad ku garan doontaa. habeenkaas gelinkiisii dambe garaad wiilwaal ma uu ladinoo il iyo baal isma uu saarin. dhinac wuxuu ka seexan kari waaye ninka sidaa u dhiiran oo carrada uu ka taliya kula dhaqan, isaguna aanu weli garan karin. dhinaca kalena wuxuu ka fakarayay garashada dheer ee afadiisa iyo xujada ay hor dhigtay ee laga rabo saa dambe markay noqoto inuu furfuro. isaga oo labadaa arrimood jiefkii la qabanla ayuu waagii u bariyey. kolkaas buu odayadii reeraha wuxuu ugu dhawaaqay shir berri lagu kulmi doono oo aan cidina ka maqnaan karin. isla maalintaas gelinkeedii dambe ayay dahabana waxay fariin u dirtay cigaal ilay si uu cawadaas ugu yimaado iyaduna ay u haasaawiso. waa sidii uu rabeeye cigaal oo aad u faraxsan ayaa fiidkii horeba isa soo dhigay. meeshii ay ku ballamisay intuu sii fadhiistay ayuu ku sugay, iyaduna markii uu reerku xoolihii maalay ayay ugu timid. waxay ku bilowday sheekooyin hor leh iyo haasaawo ka macaan kii uu awal hore uga bartay. rag oo idin inay isaga ugu jeceshahay ayay laabta ugu riday. waxay ugu bashaaraysay si ay yeeshaba inay aakhirka isaga xilihiisa ku dambayn doonto. isna intuu hadalkeedii u beerraqay ayuu wada rumaystay. bogga iyo beerkaba wuu ka qaboobay. erey walba oo ay ku tiriba dhagaha ayuu u raariciyey. markaas buu maanka iyo maskaxdaba ku hubsaday. riyadaa quruxda badan ayuu fiidkii hore ilaa aroortii ku jiray. markii ay qorraxdii bari ka soo iftiintayna waxay ku ambabixisay erayo macaan badan, isaga oo weli la jooggeeda sii raba. iyada oo ilka cadcad iyo cirid madow badan ugu qoslaysa ayay sagootisay. wax yar kadibna geedkii shirka ayuu isa sii taagay, isaga oo dhanna ka faraxsan dhanna ka daalanoo halaaqoonaya. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo. waa inoo toddobaadka dambe iyo waxa geedka shirka ka dhici doona ee wiilwaal iyo cigaal ilay ku dhex mari doona hadduu eebba idmo. mahadsanid. barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha waxaa inoo soo jeedinayay axmed faarax cali idaajo. halka aad weli nagala socotaana waa washington.